mid labaad ninkan meesha wuxuu saaray anaga inuu maamulo anaga dadku maamulay anaga way taxigu qaadanaya ma ahayn jeeb ku shubto ha salaamu calaykum raxmatullaahi barakaatuh kusoo dhaw halkan waa ka sheekay maanta waxaan ka sheekaynaa arrimaha maanta wadanka ka jira iyo magarasa xaalad runtii aysan dadku inteeda badan aysan ka hadlin arrimo dadku inta badan aysan ka hadlin arrintaas waxa weeye quruwaaga xagga quruwaaga dadku iskuma quuraan libinta iyo dadnimada iyo haybadda ilaahay qofka siiyey iskuma quuraan dadkeena maanta waxa halkaan dhigeen waayada waxaad arkaysaa nin ilaahay haybad iyo sharaf siiyey oo wax garada oo hore ordayo nimaan caaqaba lahayn oo waxar ku aamini kar waxar ya qofkii uu afgaran waayena saadaya waxa la khaarijiyo dhaya ila wuxuu ogyahay ninkan wuxuu ogyahay inuu ka rageen ma wanaagsan yahay weliga ya allahna hadii meel aad maamulkeeda haysid ama meel aad ka shaqaysid ama dad caawinaysid oo lagugu yiraahdo waa fudud tahay niyo fudud baa tahay niyo fudeedkaaga badan meel firsal lagu yiraahdo waa calaamadaha waa xirfadaha isticmaalaan dadka aan dadnimo iyo aqli badan iyo xigmad oo qof ku maamul haysanin erayadaas isticmaala hal waa fudud hebelow waa yar fudud niyo meel firsal haduu ku yiraahdo haka yeel fudeedka waxa sheegaysa waxaad ka hadlaysid waxaan ku cadday waxyaabooyin meeluu ka liidan yahay dhan miiska u saara kala xishoonay ku cadday waxaad tiraahdaa waar umada ka fariisanayo waxaad ma soo celin kartid ya bal waxaad ku hadlaysaa ka war arbal ka sheekay waxa halkaas hadii arintaas ku qabato maxaad ka dhihlay arintan hadii ku qabato maxaad ka dhihlay ku dheh walow si ka jawaabeen wuxuu ka hadlaya xitaa bal waqti inta siisid dhagiiso un in yar ka bacdi su'aalihii uu ku hadlayo dhan wax ka weydii wuxuu ka jawaabi kara u fiirso dadkiina soo maray iyo raggan hadda magaranaysa meelahan kala haysta ee isla ognahay ya bal u fiirso maanta waxay ku hadlayaan bari waxay ku hadlayaan ismalaha waa laba arrimood kala duwan hadii aad ka dhageysatid wareysatid wuxuu ku hadlayo hadda ku hadlayay bari toona arrin kale ku doon ku hadlay marka dadku su'aal weydiiyaan oo yiraahdo nin saasana qabna wuu saxanaajinaya aniga ma saara way dibarsan yihiin dawladda maanta jirta oo dawladda maanta muqdisho ka dhisan iyadoo qarankii Soomaaliyeed iyada rabisan gareynaysa iyada maamulkeeda ilaahay u dhiibay raggaas intii dad inoo soo mariyay waa dadkan rajada soo celiyay reerka doonto haw qabiilka doonto ku abtirso sida doonto cuqdadeysanayd adiga ku taala bila aadanku anagu waxaan arkayno man ka hadli karnaa reerka doonto ama rabisan garee Puntland rabisan garee ama rabisan garee waqooyi rabisan garee ama garow maamulka ka dhisan rabisan garee ama rabisan garee Hargeysa maamulka ka dhisan rabisan garee ama Kismaayo rabisan garee walaal doon rabisan garee ilaahay qofku sharfo wuu sharfay ummadan ilaahay uu ku abuuray oo Soomaali la yiraahdo siday u dhan tahay arinta ilaahayna u duleeyay waxa weeye uqti iyo qabiil iyo najaaso quruwaaga horta sidiisa baash quruwaaga la yiraahdo qofka ina wax u qoortid wax aad u wanaagsan muqdisho shacabka jooga alxamdulillah rabbil aalamiin hadda dantooda way gartaan maalinkii dhow wixii yaraa dhacay oo ka dhacay wiilkii labadii gabadhii wiilkii dhintay Allah u naxariisto amarku waa dhacay malkooda kale laakiin ilaahay ku dhaashay meelihii ma garanaysaay basasku ku istaagi jireen basasku istaageen meelaha basasku iyo bosteejooyinkii meelihii jidadka lagu qurxiyay alaabihii sida lagu keenay ilaahay ogyahay maama yaro taxi laga qaaday iyo aerobood dadka soo degay dekada wax yar laga soo arooriyay baa lagu dhis you think inay dad ku sadaqaysteen taxigii maamooyinkii laga qaaday jaadka gadayay waxa lagu dhisay iyo magaranaysaay suuqi maxaa magaciisa suuqii ii sheegay suuq qarax inta badan ka dhacay jiray bakaara dadka masaakiinta ku shaqaysanaysa baa laga arooriyay soo waxaad garateen ma marka uqur qofka wanaagsan oo fikirayo nadiifta nadaafada maskax madax kana nadiifsan
madaxa ka nadiifa qalbigana ka nadiifa qofkaas taageer oo degan oo hadalkii su'aasha kugu qancinaya laakiin qofka hadduu talow yidhaa intuu soos geeska ka cunayo soos marba geeska marka qofka hadlaya qofka aan dulqaadka dhegeysiga lahayn dadkeena horta wax baan kaga yaabay baro sida wax loo dhegeysto learn how to listen haddii aad baratid sida wax loo dhegeysto wax badan baad fahmaysaa qofka aad la nooshaa baad fahmaysaa oo dad kuugu sokoyo islaantaada ah waxaad fahmaysaa walaaladaada fahmaysaa ehelkaaga fahmaysaa baro horta sida wax loo dhegeysto qofka markaa hadalku hadlayana ha u dhegeysanin u jawaab iyosan kaa rayn u jawaab ha u dhegeysan u dhegeyso qofkan wuxuu ka hadlayo inaad fahantid qofkan inaad isku meel timaadaan wax isfahaysiinaysaa qofku inuusan kaa didinin hadda fiiri maamuladan hadda jira markay hadlayaan dadka xukuma waad aragtay ilaahay horta ha soo hanuusho qofkii khaldan oo ummadda meel xun wada ilaahay horta ummadda ha ka qabto qofkan dadkaan hadda meelaha ilaahay qalbigooda soo duwo danta ummadda ha gaarsiiyo dan yaroo gaar ah bay wataan siday u badan yihiin dan yaroo gaar ah wal qabiiliya wal reeriya wal laandheeriya wal anaa kaa xariibsaniya taas waxa weeye runtu waan isnaqaanaa Soomaali meesha dhigtay waan naqaanaa Soomaali meesha dhigtay wata fakhri iyo dulli baa laga wada raacay iska daa wax kaska daa baabuurta ay qof kastoo isku sheegay baabuurta laga wato waa aragteen isbitaaladana soo dayacayaan waa aragteen dadka meelaha xukuman si u nool yihiin waa aragteen baabuurta ku socdaan reerkoodii lafahooda inta ku dhagan hoteelaha haday noqoto haday waxyaamoonka meelaha laga tilmaamo ummadda haday ilmahooda noqoto dabadaha aan aqaan ilmo badan baan aqaanaa iyo gabdho badan iyo wiilal badan oo dabadaha u jiraan aqaanaa nolosha ku nool yihiin xaafadaha degan yihiin brother man sister ilaahay ka baq xaqii baashaas ka timi taksiga ummadda xooluhu ummadda way haddaad wanaag iyo sharaf sheeganaysid ummadda ilaahay ay ka nabad gasho aad bay wanaagsan qalbiga wanaagsanna waxa way waa lagu meel maraa aakhirada iyo adduunka u ogolow qofka wuxuu ku wanaagsan yahay u ogolow intaas baa laga hadlaya most important thing oo hadalkaan ku saabsan yahay waxa weeye qofka wanaagsan oo ummadda wax u keenaya u ogolow sharaftiisa u ogolow sharaf qofka haddaa sharaftid walaalkaa aad sharaftid aduu sharafaad yeelanaysaa dad badan oo xirfad badan leh oo waxa jira community ku jira oo ummadda hore wada ilaahay baa ku jira cid hadal ka dhegeysanaysa malaha wax hadday noqoto meel kasta sida loo batay war xitaa masaajidadii bay gashay waxay gashay meel kastoo wanaagsan bay gashay qof aadan fahmayno xitaa hadalku u deeqsiinayn aan hadalku deeqsiinaynin qof aan hadalku deeqsiinayn ayaaba ma garanaysaa dadkii hore daaya haddaa su'aal weydiisan cuqdad buu ninku waaba xidhan yahay haddaa wax yaroo xitaa dan ku saabsan meesha ama tala keentid may meesha lama taabtee walaal iska dhaaf fudeedka iska dhaaf baa lagu leeyahay brother anagana rabisan garanaysa haddaa masaajidka joogtid dadka masaajidka kusoo tukanaya dadka muuminiin ilaahay baa mas-uuliyaddan kuu dhiibay masaajidka aad dadka u joogtid ummadda hadal ka qanci ha xanaaqin dadkaana ka yaabay waxay fahmayaan waxay fahmaan ma adigii baa wax fahansiinay adiga haddaad garanaysa ummadda wax fahansii ya sidee baad horta qof u duraysaaba horta qofka wax fahansii qofka waxa la yiri ma taqaanaa haddaad ninku reer yeelanayo haddaa reer qofka uu yeelanayo guri wuxuu maanta gabar buu guursanaya markaa gurigaa timaadid haddaad ummadda ku dhegeysan jirtay oo nin aftahana tahay oo nin gabyo tahay oo nin aad u xikmad badan tahay oo magaranaysa meeshaad ka hadashid maasha allah nin aad u caqli badan gurigaaga markaas shaatiga xaggaasaa dhigaysaa xaaskaaga oo timi danta reerka iyo baa laga sheekaysanaya aftahanimadii dhugdhugdii iyo isqalloofintii inaad la soo geshid maaha islaantaada hay abaay macaan seeta ka sheekaya wiilka xaafadda noqon wiilka odayga xaafadda haddaad madaxweyne tahay haddaad injineer tahay haddaad skillkaas is your skill adiga kuu taala
anagana guriga ku practice gareysid maaha noola timaadid xaafadda oo la timaadid gabadhan sidoo kale hadday maanta naaga cilmi badan tahay odaga inay miskiinka wuxuusan aqoon ku abuse gareysa maaha ya ay tiraado wareedhe ay ku cadayso maaha laskuma caddayo baash waxa weeye qofka inaad shaatiga halkaa dhigtid la simato qofkaaga iyada skill bay taqaanaysa laakiin dhaqanka reerku waa very simple way wixii guriga u baahnaa waxay gabadha dhaqaale kaaga baahnayd wixii adigoo dhaqaale iyada uga baahnayd wixii xaq ay kugu lahayd wixii xaq ugu lahayd isfahanka hadii qofka saawa qofka kale wuxuu baahan yahay niyad isku dhiska isku waabinta grants qofka saab weakness buu leeyahay qofka saab cilad buu leeyahay qof wanaagsan ma jirto gabadhu meesha ka kor qaad adoon ku dureynin ku liideynin naagaha kale saas sameeyaan adoon dhahaynin hebelaba saas sameeyaan adoon dhahaynin limitkeeda halkaas adiguna ilaahay ku sii adaa booskeedii ka dhisan adaa buuxi beesh ha ku duran gabadha ninkuna sidoo kale gabadhuna sidoo kale odaga haddii aragtay meelaha qarsan ku fiicneen maaha inay ku cadayso adaa u yaqaano Soomaali u fiirso intaas qabta man kor meesha ku fiican gabadha kaga fiican gabadha meesha ka fiicantay ninka kaga fiican ilaahayna wuu isku dhammaystiray sida ilaahay isku dhammaystiray in la isku garaftaa aragnado arrimaha iskaga dabageeyay way ma fahantin marka ilaahay baa horta ummadan soo deystay ilaahay markuu soo deysno nabiyo soo diray kutub la raaciyo sunna iyo rag lagaga dayno noo soo diray hadda inta raacaysid raacid qabkana bahalka qabka la yiraahdo ku galan horta ma wanaagsan been ku sheegay ma gool aad gaaraysid ma jirto meel aad magaranaysaay wax ka qabsanaysaay ma jirto soo wax garteen ma marka ana soo gabagabeynay hadalka waxa ugu dan leeyahay khiyaarta ilaahay sharfo waxa weeye uqtiga iyo isla weynida iyo amar jacaylka iyo xukun jacaylka waxan weeye reerkaaga ina aaminto reerkaaga inuu reeraha kale ka wanaagsan yahayna waa waxan weeye reerka si nin wanaagsan baa ku jira nin waalan reerka ku jira reer walba nin dhaqan xun iyo nin idab dar ku jira laakiin leen how qofkaaga adu qabsanaysid war umada ka farso waxay qurun iyo wax aad taqaanin male hadaa ku tira ku cadeys suuqyadina markuu la tago meel laga fariiso haduu dadku aabiyoodo meesha dhowr oo caloosha taaganta xanuunsan intay meesha tagaan ay dhahay anaga reer anaga noo dalay ninkan meeshiisa isaga soo xoreystay maxaa laga rabaa intay saa isku soo dhuufiyo waxa ninkan meeshiisa isaga soo xoreystay maxaa laga rabaa arrin meesha xoreystay meesha ummadoo dhan buu ka dhaxeeyay adiga mid labaad ninkan meesha wuxuu saaray anaga inuu maamulo anaga dadku maamulay anaga weey taxigu qaadanaya ma inuu jeeb ku shubto